kulan wacan wanaagsan idil haantiinba saaxiibayaal kusoo dhawaada barnaamij aynu ku eegi doono ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed oo maanta hortegay golaha baarlamaanka dalka ethoobiya waxaana laga weydiiyey xaalada guud ee dalka ethoobiya. ra-iisul wasaare abiy axmed su-aalaha wax laga weydiiyey waxaa ka mid ah ciidamadii gaarka ahaa ama loo yaqaanay liyu booliska ee la kala diray, sababaha loo kala diray, waxa xilligan kusoo aadiyey maadaama xaalad guud oo iska qallafsan uu ku jira dalka ethoobiya. haddaba ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa su-aashaasi ka jawaabay isagoo sheegay in kala dirka ciidanka liyu booliska dalka ethoobiya ama ciidanka gaarka ah ay ahayd qorshe ay qaadatay xukuumaddiisa, ayna kala tashadeen hay-adaha kala duwan ee ammaanka, maamulada kilalada, hogaanada nabadgelyada iyo khuburo u xil saaran dhanka arrimaha amniga iyo siyaasadda guud ee dalka ethoobiya. abiy axmed waxa uu xusay in kala dirka ciidanka liyu booliska 3 arrimood dartood ay qasabtay in la kala diro, sidaa darteedna ilaa iyo hadda ay meel fiican wax marin hayaan. qodobka koowaad ayuu ku sheegay in ciidanka liyu booliska oo muddo dheer kasoo shaqaynaya dalka ethoobiya loo aas-aasay marxalad markaa jirtay balse aan loo marin nidaamka sharciga ah ee dalka ethoobiya oo aysan haysanin wax sharciyada oo ay kaga soo shaqeeyaan gudaha dalka ethoobiya, sidaa darteedna loo baahday in la kala diro. sidoo kale ra-iisul wasaare abiy axmed waxa uu sheegay in kharashaadka ku baxa ciidanka liyu booliska dowladdeegaanada guud ee dalka ethoobiya uu yahay mid aada u tiro badan, loona baahan yahay in ciidankaasi ay helaan caafimaad, tababar, qalabayn, raashin, baabuur, hub iyo rasaas iyo wax walba oo agaba. maadaama marka ethoobiya uu ka jira ciidan guud oo qaran, waxa uu sheegay in kharashaadka ku baxaya ciidamada gaarka ah ee deegaanada in loo baahan yahay in hal kharash oo ciidan uu si guud dalka uga baxo oo aan loo baahnayn kharashaadkan faraha badan, sidaa darteedna dalka uusan awoodi karin in kharashaadkaasi uu ku baxo ciidamada gaarka ee liyu boolisyada ee dalka ethoobiya. waxauna sheegay iyadoo arrintaasi la tix raacahayo in xukuumaddiisu ay tala bixin ay la samaysay hay-adaha ammaanka iyo sidoo kale khuburo dhanka siyaasadda iyo diblomaasiyadda iyo ciidamada ah in ay qaadatay in la kala diro ciidamada liyu boolisyada ee guud ahaan dalka ethoobiya. sidoo kale ra-iisul wasaaraha ethoobiya waxa uu sheegay in sababta saddexaad ee loo kala diray ciidamada liyu boolisyada ay tahay maadaama ethoobiya ay tahay hal dal oo leh hal calan, sidoo kalena ay ku nool yihiin qowmiyado fara badan. dalka muddadii uu jiray in ciidamada liyu boolisyadu ay khatar ku ahaayeen arrimaha amniga ee deegaanada dhexdooda, xuduudaha qaybo ka midana ay ka dhaceen dagaallo, sidaa daraaddeedna loo baahnaa in la helo ethoobiya mid ah, hal ciidan leh, hal qaran ah, hal aragti oo midaysanna ee waddanka uu yeelan karo. si loo helo marka qaran ethoobiya oo midaysan, waxa uu sheegay in la kala diray ciidanka liyu booliska dhammaantood wixii ciidamo liyu boolisyo ahaana loo samayn doono 3 darajo oo kale ah: inay ku biiraan ciidamada qaranka, inay ku biiraan ciidamada federaalka iyo sidoo kale inay ku biiraan ciidamada boolisyada maxalliga ah ee dowlad deegaanada dalka. waxa uuna xusay in maanta ethoobiya u baahan tahay inay noqoto qaran adag, madax bannaan, hal ciidan leh, hal calan leh, hal aragti leh, hal mabda' leh, sidaa daraaddeedna ciidamada liyu boolisyadu arrintaasi ay caqabad ku ahaayeen. iyadoo marka arrintaasi la tix raacayo wuxuu yidhi si qarannimada ethoobiya tiirarkeeda loo adkeeyo, waxaa loo baahday in la kala diro dhammaanba ciidamada dowlad deegaanada ee dalka ethoobiya. arrintaana waa aan ku guulaysan ayuu yidhi ra-iisul wasaare abiy axmed. ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa si gaara ugu mahad celiyey ciidamada liyu boolisyada dalka ethoobiya, waxauna sheegay in ciidamadani muddadii ay kasoo shaqaynhayeen xaaladda dalka ay sugeen inta badan xuduudaha goobaha khataraha ay ka jiraan, sidoo kalena ay ka qayb qaateen arrimo bili-aadantinimo. waxaa kaloo uu xusay in ay jireen dhacdooyin ciidamadu ay geysanhayeen oo sidoo kale waxa weeye dadka ethoobiyaanka qaybo ka mid a ay dhibsanhayeen, balse si guud waxa uu sheegay in ciidamadaasi uu ugu mahad celinhayo muddadii ay soo shaqaynhayeen, qaabkii ay usoo shaqeeyeen, wakhtigii ethoobiya ay usoo hureen. waxauna sheegay in aan la ilaawi doonin kaalintii guud ee ethoobiya ay ugu jireen ciidamada liyu boolisyada. waxaa kaloo uu xusay in loo baahan yahay in aan la fiirinin wixii laga soo tegay, balse la taageero waxa hadda socdo oo ah dhismaha qaranka iyo sidii ethoobiya dib u habeyn loogu samayn lahaa. hadalkan ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed uu maanta ka horjeediyey baarlamaanka ayaa kusoo aadahaya dhowr bilood kadib markii xukuumaddiisu ay ku dhawaaqday in la kala diray ciidamada liyu boolisyada dowlad deegaanada dalka ethoobiya, iyadoo ay jireen nuxnux ama shuxshuxoose oo la xidhiidha
in qoomiyadda oromadu aysan ka mid ahayn ciidamada la kala diray ee liyu boolisyada, balse abiy axmed waxa uu si waafi ah oo cad u sheegay maanta in aysan jirin qoomiyad si gaar u haysan doonto ciidan liyu boolis ama ciidan gaara. dhammaan qoomiyadaha ethoobiyan arrintani ay saamayn doonto. sidoo kale arrintan ayaa waxay ku soo aadaysaa xilli ethoobiya ay ka soo noqotay dagaalkii muddada dheer ka socday waqooyiga dalka ethoobiya u dhexeeyey xukuumaddiisa iyo sidoo kale TPLF, waxayna dadka arrimaha siyaasadda falanqeeya sheegayaan in abiy axmed sababta u kala diraya ciidamada liyu boolisyada ay tahay kadib markii ciidankii liyu booliska ee Tigreeg ay galeen dagaal xoogan, sidoo kalena goobo badan ay ku jabiyeen ciidamada militariga Ethiopia. sidaa darteedna abiy axmed oo raba inuu xukunkiisa muddo dheer sii joogo, sidoo kalena sheegay inuu yahay boqorkii toddobaad ee Ethiopia, uu u arko in ciidamada liyu boolisyadu ay khatar ku yihiin xukuumaddiisa. waxayna sheegeen dadka siyaasadda falanqeeyo in abiy axmed uu hadda doonayo inuu dhiso ciidamo xoog badan. marka laga yimaado khudbadda maanta uu ka horjeediyey baarlamaanka, waxaa jirtay shalay in madal uu ka hadlay abiy axmed uu sheegay in uu dhisay 3 sane ugu dambeysay ciidan aad u fara badan oo sidoo kale sii jiri kara ilaa 200 oo sano. Ethiopiana maanta ciidamadeedu aysan jirin maalin ay ka xoog badan yihiin. sidoo kale tirtiridda ciidamada liyu boolisyada waxay ku soo aadaysaa xilli dowlad deegaanka Soomaalida iyo Canfartu ay u dhaxaysay xaalad colaadeed oo aad u cakiran. amxaarada gudaheeda ciidanka liyu booliska ay la dagaalamayeen jabhadda Faano, balse hadda ay ku biireen Tigreeg ay dagaal ka soo noqdeen. Oromada iyo Soomaalidu qaybo ka mid ah dowladdeegaanka isku fiicnayn. dowlad deegaanka Soomaalida ururka Al-Shabaab ay ka soo weerareen dhinaca xuduudda gobolka Al-Fashaqa ee Ethiopia ay la wareegtay dowladda Suudaan. sidoo kale xiriirka Eritrea iyo Ethiopia oo isla maantaba uu ka hadlo dib idin ka soo gudbin doono uu sii xumaanayo. xaaladda guud ee Ethiopia ay tahay mid khatar iskaga sugan xilligan. abiy axmed waxaa kale oo arrintani ku soo aadaysaa xilli dhaqaale ahaan Ethiopia la sheegay in ay taagan tahay meeshii abid ugu xumayd, waana arrinta loogu badinhayo in ay tahay sababta ugu muhiimsan oo ah maantana uu ka shanqariyo uu yidhi kharashaad ooma hayna ciidamada liyu boolisyada ay kusii shaqeeyaan. waxaa weeye sidaa daraaddeedna maadaama kharash loo haynin keliya waxaa qasab ah in la helo hal kharash oo ku baxo ciidanka qaranka. marka la isku soo xooriyo kala dirka ciidamadan liyu boolisyada ee dowlad deegaanada dalka Ethiopia, Soomaalida ayaa u aragta in ay ku tahay khatar maadaama aysan siyaasiyan ahayn bulsho isku tiirsan, aragti siyaasadeed oo midaysan leh, qorshe iyo istaraatiijiyad xaaladaha Ethiopia ay kaga gudub kartaa maraaxisha Ethiopia hadba ay marayso ay kaga gudbi karaan aan haysanin. sidoo kale Soomaalida ayaa u aragta liyu booliska kala dirkooda in ay keeni doonto khalkhal iyo amni darro ka imaada gudaha ciidamada militariga aysan la qabsan karin. iyadoo weliba arrintaasi marka laga imaado dee Soomaalidu siday u aragto aynu ognahay in kala dirka liyu booliska markii lagu dhawaaqay iyo imaanshihii ciidamada militariga inay keentay in qaybo ka mid ah dowlad deegaanka ee Soomaalida ciidamada militariga ay dhibaato ka geysteen oo ay ugu dambeysay marxaladii hadda ka taagnayd magaalada Qabridahar, taasoo ilaa 4 ama 5 qof lagu dilay in tirada ka badan lagu dhaawacay. qaybo ka mid ah deegaanka Soomaalida oo kalena la sheegayay in ciidamada militariga Ethiopia ay dhibaato ka geysteen. Soomaalida ayaan u arkaysay maadaama ciidanka liyu booliska ay hore dhibaato fara badan ugu soo geysteen, haddase ay waxa weeye intii ONLF ay soo xarootay ay qayb ka ahaayeen hay'adaha nabadgelyada dalka in ay ka doorbidahayaan ciidamada militariga. marka isku soo duuduubo abiy axmed maanta si cad ayuu u sheegay 3 qodob ay ka mid tahay inaysan nidaam sharci ku aasaasnayn, kharashaadkooda oo tiro batay, iyo in loo baahan yahay in qaran Ethiopia oo isku xidhan la dhiso darteed in loo tirtiro ciidamada liyu booliska. marka xaaladii guud ee ciidamada liyu booliska waa la tirtiray iyo lama tirtirintii la isku hayay muddo dheer. abiy axmed maanta si waafi ah oo qof kasta uu fahmi karo ayuu u sheegay. marka laga yimaado ciidamada liyu booliska kala dirkooda, waxaan idinla wadaagi doonaa hadba khudbadda ra'iisul wasaaraha Ethiopia abiy axmed uu jeediyey meelaha uu kaga hadlay, waxaana idiin soo gudbin doonaa su'aalo laga weydiiyey xiriirka Eritrea iyo Ethiopia, xiriirka TPLF iyo xukuumaddiisa, xaaladda dowlad deegaanka Amxaarada, dhaqaalaha waddanka, shaqada iyo shaqaalaysiinta, sidoo kale ku biiritaanka Ethiopia ee madasha badda cas iyo xaalado kale oo ra'iisul wasaaraha laga weydiiyey. tan intaan kulmi doono barnaamijka saxiga waxaa idinkaga tegayaa sidaasi nabadgelyo fi amaanillah.